soo dhawaada asxaabay muxuu dalbaday wiilkan yar daqiiqada ka hor intaan dil lagu xukumin maanta waxaan idila wadaagayaa qisada shakhsigii ugu yaraa ee taariikhda Mareykanka dil lagu xukumo George Staney waxa uu ahaa shakhsigii ugu yaraa ee dil lagu xukumo taariikhda Mareykanka waxaanu ahaa kursiga koronto ee lagu dilay wiilkan yar mid aad uga weyn waxa xukunka dilka lagu fuliyay 1944 isagoo xilligaas jiray 14 sano oo kaliya ilaa xilligan aynu joognana waa qofkii ugu yaraa ee taariikhda Mareykanka dil lagu xukumo go'aan kastaba waxa ku soo afmeermay in wiilkan yar la dilo kadib markii wiilkan yar lagu soo eedeeyay inuu dilay laba hablood oo cadaan ah gabdhaha uu dilayna waxay ahayd Ronnie 12 sano jir waxaana lagu magacaabi jiray Biddy Chun halka takalana ay ahayd 8 jir magaceeduna waa Mary Emma Thames dhacdadani waxay dhacday 23 Maarch 1944 waxaana ka dhacday deegaanka Alkulo ee koonfurta Carolina ee wadanka Mareykanka markaas oo labadan gabdhood laga helay meel dooxa u dhow iyagoo maqnaa lana raadinayay 24 saacadood kadib markii la helay baaritaanna jirkooda la mariyay waxa la helay in si daran loo jir garaacay laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay maxay yihiin xiriirka ka dhaxeeya wiilkan iyo kiiska jawaabtu waa waxba sida ilaa hadda dadka qaar sheegayaan wiilkani ma lahayn dambiga waxaanay leeyihiin isaga ayaa afkiisa isku xiray isagoo u tagay dambi baarayaasha kuna yiri waxaan arkay labadan gabdhood oo dhulka yaala mid ahaan labada gabdhoodna ay naftu ku sii jirto kadib cabaar markuu aamusnaa ayuu haddana hadalkiisii isagoo sii wata yiri gabdhahan waxaan soo maray iyagoo markii hore baaskiil wata dabadeedna waxaan weydiiyay xagaan ka heli karaa ubaxyo kadib markii hadalkiisii madmadow laga dareemay waxay dambi baarayaashii qabteen wiilka yar iyagoo ku tuhmayay inuu isagu geystay falkan waxaanu wiilkan yar ahaa eedeymaha kaliya ee kiiskan loo hayay lamana hayn xilligaa markhaati ka bari yeela ama ku caddeeya wiilkan dilka labada gabdhooda loo haystay kadib 10 daqiiqo oo xeer ilaalintu arrintan gorfeynaysay isla markiiba waxay go'aansadeen in wiilkan la dilo go'aanka degdega ah iyo xukunka qalalan ee lagu la kacay George-na waxa ka xumaatay kana mudaharaaday ururka NAACP waana urur ilaaliya oo difaaca xuquuqda dadka madowga ah muddo 3 bilood ah marka laga joogo xukunkii kiiska waxbana aanay ka cusbeen qadiyada waxa dhacay subaxii bisha June ahayd 16 sanadkan oo ah 1944 waxa la gaaray goortii la dili lahaa wiilka waxaana u soo galay qareenkiisii waxaanu weydiiyay maxay tahay waxa ugu dambeeyay iga codsan lahayd intaan lagu dilin waxaanu ka dalbaday qareenkiisii inuu u keeno buug waana u keenay waxaana wiilkii loo soo dhaqaajiyay dhinaca qolka lagu diliyay isagoo sita buugii markii qolkii la geeyay kursigii ayaa ka weynaaday wiilkan waxaana askartii dilka fulinaysay garan waayeen qaabkay ugu fadhiisin lahaayeen wiilkan kursiga intaa kadib waxay ka qaadeen kitaabkii uu sitay waxaanay u saareen kursiga si uu ugu fadhiisto gacmahana ula soo gaaro kursigan korontadu ku xidhan tahay 4 daqiiqo oo xaaladdu wiilkan ku adkeyd kadib mar ayay naftu ka baxday sidaasaanu ku geeriyooday George Staney ilaa intii dilkiisa ka dambeysay waxay ahayd qadiyadiisu mid saameyn weyn ku raabtay dadka 2005 waxa qadiyada wiilkan dib u baaray 3 xeer ilaaliye waxaanay cadeeyeen in wiilkaasi aanu shuqul ku lahayn dambiga waxaana wiilka yar ee George astaan u noqday dadka madowga ah ee lagu cunsuriyadeeyo dalka Mareykanka ilahaas ay ku eegtay xalqadeenan maantu haddaad ka heshay muuqaalkan yar ee gaaban like dheh subscribe na saar oo nagu soo biir